Your Excellency, I want to thank you most sincerely for extending an invitation for me to join you today and for the warm reception and hospitality accorded to me and my delegation since our arrival in Mogadishu. Your Excellency, I bring you and through you, the people of Somalia, greetings from their brothers. xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa hoos u sii socday labadii sano ee la soo dhaafay oo hoobad ka sii degaya waxaana dhawaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay qaadatay go'aan ku wajahan inay safiirkeedu u joogay Nairobi u yeerato sidaas oo kalena dalkiisa la tashi ugu dirtay safiirka Kenya ee Muqdisho taas wixii ka dambeeyay xukuumadda Nairobi waxa ka soo baxay fafaalo ku wajahan arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo dagaal diblomaasiyadeed tallaabadan oo kale waxa hore u qaatay Kenya bishii February sanadkii weydaartay ee 2019 xilligaas oo ay Nairobi doonaysay in labada dal la dhexdhexaadiyo waxaana bishii March dhexdhexaadiye ka noqday arrintaas ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo labada hogaamiye kula saddex ahaa kulan ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya hadda isku dayay la xiriiray in mar kale xiisada taagan wada hadal ay ka yeeshaan labada dhinac ayaa xoguhu cadeynaya inay fashilmeen kadib markii ay soo wajeen caqabado la xiriira hanaanka wada hadalka iyo sida loo fulinayo waxa lagu heshiiyo dhanka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka tagtay war ku aadan inaysan aqbalayn hadal xilligan ay la hadlaan Uhuru Kenyatta balse taa beddelkeeda ay diyaar u yihiin in la fuliyo dhammaan heshiisyadii hore loo gaaray Kenya ayaa mar kale hadda qaadaysa tallaabooyin ka careysiin doonta dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ka hor 15 bishan casumaad u fidisay Nairobi madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay wada hadal kula yeelan doonaan magaalada Nairobi ilo diblomaasiyad ayaa noo xaqiijin casumaadan ka shaqaynteedu ay soo taagneed tan iyo markii wafdi ka socda xildhibaanada Kenya ay tageen Hargeysa halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha Somaliland Hargeysa ayaa fursad siyaasadeed u aragtay xiriirka sii xumaanaya ee Nairobi iyo Muqdisho waxaana hadda xoogga saaraysaa sida ay uga faa'iideysan lahayd iyadoo danaynaysa inay hesho maamuus madaxweyne ugu yaraan marka la joogo fagaaraha garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee Nairobi iyo madaxtooyada madaxweyne Biixi ayaa socdaalkiisan uu yahay mid siyaasadeed haddii uu helo maamuus madaxweynenimana waxay uga dhigan tahay taasi guul siyaasadaysan Nairobi waxay cadaadis tallaabadaas ku saaraysaa fiila Soomaaliya waxayna labada dhinac ee Hargeysa iyo Nairobi ku heshiin karaan qodobada qaarkood Biixi ayaa doonaya in Kenya ay ogolaato in baasaboorka Somaliland lagu tago gudaha dalkeeda in qunsuliyad laga furo Hargeysa ay leedahay Kenya iyo in baasaboorka diblomaasiga ee Somaliland uu noqdo mid bila fiisad ama dalku gal laan ay ku soo galaan madaxdeedu Nairobi sidaas oo kale Kenya ay noqoto hormuudka ictiraaf raadinta ama inay olo siyaasadeed uga dhex samayso wadamada Afrika macluumaadka ayaa sheegaya in Kenya ay ogolaan doonto laba ka mid ah dalabka Somaliland kuwaas oo kala ah in baasaboorka diblomaasiga ee Hargeysa lagu galo gudaha Kenya ayadoo ka hor la soo marinayo qunsuliyad ay ka furan doonto Hargeysa sidaas oo kale Nairobi waxay ballan qaadi doontaa madaxweyne Biixi inay sameyn doonto u qareemid siyaasadeed marka la joogo golayaasha Afrika laakiin sida ay Kenya uga dhaadhicin karto arrintan wadamada badan ayaa mid aan sahlanayn ka hor inta uusan fasaxa 30 maalmood aan cidna arkayn uusan galin Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya ayuu qaabili doonaa madaxweynaha Somaliland waxayna Nairobi doonaysaa in Soomaaliya ay qaado tallaabo kale oo dheeraada Kenya waxay saameyn ku leedahay arrimaha gobolka Bariga Afrika balse dagaalkeeda diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Muqdisho ayaa cabsi uga qabtaa in qorshaha isdhexgalka wadamada Itoobiya Soomaaliya ee Eritrea uu danaheeda halis ku noqdo waxayna taas u sameynaysaa tallaabo kasta oo ay cadaadis ku saar karto isbahaysigan lama garanayo jawaabta dawladda federaalka oo hore Kenya ugu eedeysay faragelin ku wajahan arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxaana Kenya ciidamadeedu ka joogaan gobolada Jubbooyinka sidaas oo kalena saameyn ay sahlaneyn ayay ku leedahay Jubbaland oo la rumaysan yahay inay ku dhaqaaqayso taageerada Uhuru Kenyatta sida muuqata Kenya cadaadiskeeda ayay sii kordhinaysaa waxaana imika la filayaa jawaab ka timaada xagga fiila Soomaaliya